mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Mexico ayaa warbaahinta u sheegay in laba maalmood gudahood ay qabteen 500 oo qof oo doonayay inay si sharci darro ah kaga gudbaan xuduudda dalka Mexico uu la leeyahay waddanka Mareykanka. dadka la qabtay oo iskugu jiray haween, carruur iyo waliba dad da' ah ayaa intooda badan waxay ka soo jeedaan wadamada ku yaala qaaradda Latin America, halka qaarkoodna ay ka soo jeedaan wadamo ku yaala qaaradaha Asia iyo Africa. mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale sheegay inay gacanta ku dhigeen ayna xabsiga dhigeen kooxihii lahaa gawaarida sida sharci darrada ah uga shaqeeya xuduudda u dhaxaysa labada dal, iyagoo 10,000 oo lacaga ka qaata dadka qaxootiga ah ee doonaya inay galaan dalka Mareykanka. waa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Mexico. sanadihii tagay 2021 ilaa 2022 ayaa waxaa dhacay shilal ay galeen gawaari ay saarnaayeen dad qaxootiya, waxaana dhintay in ka badan 100 qof oo ku dhintay shilal kala duwan oo ka dhacay gobollada ku yaala xuduudda ay wadaagaan wadamada Mareykanka iyo Mexico.